السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan waxaad ku soo dhawaatiin casharkeenii maanta Let's begin today's lesson aan bilaabno casharka maanta Let's begin aan bilaabno today's lesson casharka maanta Let's begin today's lesson aan bilaabno casharka maanta Let's begin our lesson now. Let's begin aan bilaabno our lesson now. Cashirkeena aan bilaabno. Cashirkeena aan hadda bilaabno. Let's begin aan bilaabno our lesson. Cashirkeena now. Hadda. Okay. I think we can start now. I think waxaan u malaynayaa we can start now. Hadda inaan bilaaban karno. I think we can start now. I think we can start now. Waxay la tahay inaan hadda bilaaban karno. I think we can start now. Is everybody ready to start? Is everybody qof kasta diyaar ma u yahay inuu bilaawdo? Is everybody ready to start? Casharka inuu bilaawdo micnaheedu qof kasta diyaar ma u yahay waa is everybody qof walba ready diyaar ma u yahay to start inuu bilaawdo. It's time to begin. Please stop talking. It's time oo waqtigii to begin oo bilaaban lahaa. Please fadlan stop talking. Hadalka jooji. It is time to begin. Please stop talking. Fadlan hadalka jooji. It's time to begin. Please stop talking. I'm waiting for you to be quiet. I'm waiting for you to be quiet. I'm waiting for you waxaan sugayaa to be quiet inaad noqotid yacni dad aamusan inaad noqotaan ayaan sugayaa. I'm waiting for you to be quiet. We won't start until everyone is quiet. We will not start ma bilaabi doono until everybody is quiet ilaa qof waliba uu ka aamusayo. We won't start ma bilaabi doono until everyone is quiet ilaa qof waliba uu ka aamusayo. Stop talking and be quiet. Stop talking hadalka jooji and be quiet. Be quiet ereygan waxaa u isticmaalaa badanaa yacni in jawi xasilan oo buuq aan lahayn oo mataqaana degan yacni lagu jiro marka wuxuu la hadalka jooji oo aamus hadalka jooji aamusana micnaha saas waa stop talking and be quiet. Who's absent today? Yaa maqan maanta. Who's absent today? Yaa maqan maanta. Who's absent today? Maanta yaa maqan. Okay. Who isn't here today? Maanta yaanan joogin. Who isn't here today? Who is not here today? Maanta yaanan joogin. Who is not here today? Maanta yaanan joogin. Nobody is absent. Qof maqan ma jiro. Nobody is absent. Qof maqan ma jiro. Nobody is absent. Qof maqan ma jiro. Any question? Wax su'aal ah. Any question? Wax su'aal ah. Wax su'aal ah. Yani wax su'aal ma rabta inaad soo weydiisid. Wax su'aal ma qabtaa. Saas waa. Any question? Wax su'aal ah. Do you have any question? Wax su'aal ah miyaad haysaa? Do you have any question? Wax su'aal ah miyaad haysaa? Do you have any question? Wax su'aal ah miyaad haysaa? How do you pronounce this word? Sidee loogu dhawaaqaa? Pronounce dhawaaqitaanka waaye marka wuxuu leeyahay how do you pronounce this word? Ereygan sidee loogu dhawaaqaa? Ereygan sidee loogu dhawaaqaa ayuu leeyahay. How do we say color in English? How do we say
يعني sideen u dhahaynaa in English ahaanta ereyga ka maqan marka waxaa rabtaa qof inaad dhahdo ereygaasee ku dhahaynaa marka waxaa leedahay how do we say sideen ku dhahaynaa kaalay ereygaas ama markaas ereyga kaa maqan oo kale ama booskaas ku buuxsan kartaa in English ahaan micnaha sideen ku dhahi karnaa how do we say kaalay in English how do we say bax in English waad ku bedelan kartaa excuse me igaraale how can you repeat that taas ma igu soo celin kartaa excuse me can you repeat that igaraale how taas yani qof war kuu sheegay excuse me can you repeat that ma igu soo celin kartaa can you repeat that ma igu soo celin kartaa what does innocent mean what does innocent mean maxaa loola jeedaa ereygan innocent la dhaho erey markaa lagu sheegay hadda fahmayso qaabka u weydiinayso waaye what does innocent mean innocent maxaa loola jeedaa ama markaas erey kale ku dhigo ayaa ku bedelan kartaa can you give us an example tusaale ma naga siin kartaa can you give us ma naga siin kartaa an example tusaale ma naga siin kartaa can you give us an example tusaale ma naga siin kartaa what is the answer for number 9 what is the answer waa maxay jawaabta number 9 number 9 jawaabteedu waa maxay what is the answer waa maxay jawaabta oo number 9 numberka 9aad jawaabtiisu waa maxay we don't understand the lesson cashirka ma fahmin 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 okay why don't we ask the teacher maxaan macalinka u weydiin la'nahay why don't we ask the teacher macalinka maxaan u weydiin la'nahay why don't we ask the teacher macalinka maxaan u weydiin la'nahay did you do your homeworkgaaga ma soo samaysay yani ma ka soo shaqaysay did you do ma ka soo shaqaysay your homeworkgaaga ma ka soo shaqaysay ma soo yani ma ka soo shaqaysay waa yani ma soo samaysay ama mataqaanaa marka did you do your homework can you explain it again mar kale ma ii sharxi kartaa can you explain waxaa waaye sharaxaad can you explain it again mar kale ma ii sharxi kartaa can you explain it again now I understand hadda waan fahmay now I understand hadda waan fahmay now I understand hadda waan fahmay maadaama uu dhahay mar labaad ma ii sharxi kartaa waxaa waaye sharaxaada dambe ayuu ku fahmay marka wuxuu leeyahay now I understand thank you for your helping waad ku mahadsan tahay caawimaadaada thank you waad ku mahadsan tahay for your helping caawimaadaada waad ku mahadsan tahay thank you for your helping caawimaadaada waad ku mahadsan tahay thank you for your helping likewise sidoo kale sidoo kale intaad dhihi lahayd thank you very much to iyo waxyaabo lamid ah waxaad leedahay likewise sidoo kale waad mahadsan tahay sidoo kale waad mahadsan tahay okay cashirkiina maanta intaas ayuu ku egyahay waxay ila tahay inaad wax badan ama mataqaanaa ugu yaraan wax un aad ka faa'iiday marka waxaan rajeynayaa in mataqaanaa ay su-aashan meeshan ku qoran jawaabteeda aad isku soo daydo su-aasha inta badan waxaan usoo dhignaa maadaama mataqaana waa isleenahay ardaydu maadaama wax badan ay xifdinayaan oo meelo badan su-aal laga soo weydiinayo haddana yacni si wixii ay u hormaraan oo mataqaanaa qofka diiradda uu saaro wax uu qaato inuu meel iska saaro
saas ayaan su'aalaha isu gudbinaa. Marka waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.